goy walaalayaal waxaad ogtihiin damiir laawayaashaasi in ay yihiin wakiillo dalkeenna u jooga cadow shisheeye danaha cadowga shisheeye ayay fuliyaan waa dad annagoo caqli leh aan doqon ahayn aqoon leh raba inay naqaldaan ma filayo inaan ka aqbalayno waaba inaynan ka aqbalayn waxayna leeyihiin turkidu waa cadowgiinna ilaah baan idinku dhaariyay ma run baa arrintaas waxay leeyihiin waxaan qarxinnay oo aan dilnay kuwa dalka ku soo duulay oo koloyo turki ah annagu garasho ma lihin miya fahan ma lihin miya annaga goobtaan joognay iyo wixii aan arkaynay ayuu nooga sheekaynayaa isagoo hawdka ku jira cala dhaare markaasuu leeyahay turkidaa ku soo duusha dalka ma turkida laamiga noo dhisaysay keenna buka daawaynaysay keenna baahana quudinaysay miyaa ku soo duulay mase cali dheere iyo kuwa isaga soo diray ayaa ku soo duulay su-aashaas jawaabteeda adinkaa laydinka rabo walaalayaal ummaddan cadaawaddeedu waa muuqataa mana aha inay kala garan weydo cadowgeeda iyo saaxiibkeeda waxaan jeclaan lahaa inaad dareenkiinna ila wadaagtaan turkidu markaan baahannay wayna quudiyeen markaan bukannayna wayna daaweeyeen markaan burburnayna waddaday noo dhisaayeen turkidu markii ciyaalkeenna la soo khalday ay injineeradooda aqoon-yahanadooda ay dileen nagama aarsane kuweennii la dhintay kuweennii la dhaawacmay ayay u soo direen diyaarad dawo iyo dhaqaatiir haddii aan dhaawacmo kan diyaaradda ii soo dira daawada ii keena dhaqaatiirta ii keena dalkiisa i geeya cadowgayga miya waxaa loo baahan yahay caqligu inuu shaqeeyo damiirta iyo caqliga wixii aan gelayn waa in layska diidaa la rabaa waxa ay sheegayaan wax la aqbali karo miya waxa ay rabaan inay dadkan reer magaalka ee waxbartay ee wax kala garanaya ku khaldaan bal ilaah idinku dhaariyay dhegaysta waxay xumaynayaan diinkeenna iyo caqiidadeenna saliimka ah markaasay ka dhigayaan dhacdadii ex control afgooye iyo dhacdadii zoobe iyo tii ka dhacda gobolka banaadir iyo dhacdooyinka kale lamidka ahaa in diinteennu qabto oo saasu ay fiican tahay ayay noo sheegayaan taasi masaxa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkeennan caqli wou siiyey dhibaato badan ayayna soo joogeen dhibaataduna ayadaa garasho dheeraada keenta maantay waxaan hubaa inaan kala garan karno kan cadowgeenna ah iyo kan saaxiibkeenna waa maalintii aan si mid ah far mid ah aan ku tilmaami lahayn cadowgeenna walaalayaal maantay waa maalin runtii ka astaysan maalmaha kale oo bulshada soomaaliyeed ay xamili weyday adkaysan weyday baktiga iyo dacayaadka iyo waxyaabaha aan la aqbali karin ee cali dheere oo hawdka kula jiray oo soo farayo ummadda soomaaliyeed waxaa la barjarayaa oo la baabi'inayaahu waa cududoodii waa dhaqaalahoodii waa aqoon-yahanadoodii waa dhallinyaradoodii kuwa sidaas ka shaqaynaya waa inaan u midowno waa inaan aragti mid ah ku wajahno
intii koox naloo dili lahaa ee aan ku sugi lahayn guryaheenna ilaan qaraxa gurigay noogu keenayaane waa inaan annagu meesha ay joogaan ugu tagno haddii alla idmo dadka waxbartay dadka hantida leh waxaan rabaa inaan u sheego kan waxbartay inuu dadka u sheego cadowgiisu inuu al-shabaab yahay inuusan ka baqan midka hantida haysta handadaadda lacagaha baaddaahee looga qaadaya waa inuu iska diido waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inayaa waxaad adiga og tahay maanta haddii laga qaado berrito ubadkaaga in lagu baabi'inayo in aad bixisaaho soo doqonnimo maaha arrintaas ayada ah waa arrin aan la aqbali karin waa arrin loo baahan yahay haddii aad biqi jirtay mar oon in dhiiridaada geesinimadaada in laga daba tago waxaa loo baahan yahay cid kasta oo ay baadi jireen kooxda maafiyada ah inay tiraahdo aniga baad damba maya inaan dhinto iyo inaan noolahay waa mid ilaahay u gaara laakiin baad aniga laygu baabi'inayo gurigayga lagu baabi'inayo ubadkayga lagu baabi'inayo ma bixinayo ganacsatada sidaasaan ka rabnaa haddii rabbi idmo garabna waa ku siinayna waa kala shaqaynaynaa dadka waxbartay macallimiinta jaamacadaha macallimiinta dugsiyada qur'aanka iyo kuwa dugsiyada iskuullada waxaan ka rabnaa inay bulshada dhallinyarada inay wacyigeliyaan ayna kala baraan saaxiibkooda iyo cadowgooda saaxiibkaa waxa ah marka aad liidato qofka wax ku taraya abwaan soomaaliyeed wuxuu yidhi ninka maalintaad tabar yareed timaha kuu xiidhay iyo kii ku kala tuuray waad kala taqaanaa marka dadka soomaaliyeed waa dad maantay fahmi kara yacni cadowga iyo waxa uu u geystay balse waa xilligii bulshadaanu ay dhiiri gelin lahaayeen ciidamada ka shaqaynaya difaacooda iyo amnigooda wiilasha jooga difaacyada furimaha ee milatariga ah haddayan hor fadhin lahayn kuwa sidaan u dhaqmaaya bal ka fikira maxaa dhici lahaa ma suuro gasheen kuwa hadda wax baranaya inay wax bartaan ma suuro gasheen bukaanka in la daweeyo ma suuro gasheen in xafiisyada laga shaqeeyo adeegyada bulshada loo fuliyo ma suuro gasheen waxaasoo dhan way qarribi lahaayeen sidaa darteed si aan adduunka kale u baabi'iyo soomaaliya shacabkeeda ay hortaagani aan horta asaga ka takhalluso ilaa idinku dhaaray wax la aqbali karo maha arrintaas intayan naga takhallusin waa inaan ka takhallusno dal walba wuxuu leeyahay dawlad maamul shaqaynaya mas-uuliyad ka ah amniga mas-uuliyad ka ah horumarka waad ogtihiin cadowgan tabaryaradii iyo burburkii dalkeenna ku dhacay ayaa u sahashay cadowga inay soo galaan oo ubadkeenna ay khaldaan ee ay hooyadii iyo walaalihii iyo dalkoodii ay ku soo diraan wacyigelin dheeraad ah ayaa nala ka rabaa haddii alla idmo walaalayaal maantay waan idinla wadaagna dareenkiinna mana idinka hari doonno ee waan idin horkacaynaa haddii alla idmo kuma ekaan doono intaan waxaan idinkugu imaan doonnaa degmooyinka aad degan tihiin waxaan qayb idinkala qaadan doonnaa haddii rabbi idmo soo sheegista iyo soo qabashada cadowga waxaan rajaynayaa arrintaasi inay si buuxday noo bartay waxa cadowgeennu uu ka dhigan yahay iyo waxa saaxiibkeen uu ka dhigan yahay intaas ayaa rabay inaan idhaahdo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu